waxaan ku soo dhaweynayaa aayadka quraanka waxaynu akhrin doonaa Sheekh Maxamuud insha Allah خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. إن شاء الله وحنا نشرح دونا حقيقة دقمدة وحويا وإسماعيل محمد جامع. waxaan u mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala ilaah khaaliqa ee isku keenay goobtan barakaysan alxamdulillahi rabbil caalamiin mar koobaad iyo mar saddexaad mar shanaad ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka labaadna waxaan doonaynaa inaan mahadnaqo gudoomiyaha amba barasaabka gobolka Maroodijeex iyo barasaabka xigeenka inamadan xildhibaanada ah marti sharaftan ka socota qolada gudida horumarinta degmada Faraweyne gudoomiyaasha ka yimid tuulooyinka ka kooban tahay degmada Faraweyne ku soo dhawaada jaamacadii abuurin beeraha marka kale waxaan kala doonayaa inaan ka faahfaahiyo sababta ay meeshan u imanay iyo ajendaha loo socdo ajendaha aan isku imanay boorkay ku qoran tahay waa aayaka tashiga gudoomiyaasha tuulooyinka hoos yimaada degmada Faraweyne waanu idin mahad celinaynaa sida sharafta leh iyo karaamada leh ee aad nooga aqbasheen martiqaadkii aanu idin fidanay ee aad uga soo qayb gasheen iyadoo ognahay waqtiga aan joognay waqti jiilaal oo xaaladaha ay ku sugan yahay in degmada aynu ognahay waan idin mahad celinayaa ilaahay ayaa mahad iska leh kulli shirku uu inoo furan yahay oo waxa weeye ajendaha laga leeyahay hoos baan ugu dhaadhici doonaa laakiin se waxa weeye horta hadafka aynu socono aynu meesha u imanay aynu shirkan isugu imanay waxa weeyaan in marka hore ay isbartaan oo dadka iska bartaan gudoomiyaasha tuulooyinka in ay isbartaan marka aynu isbarano kadibna shirku ila inoo sii furnaay hadii aan ajendaha uga soconay ilaa berri inoo socdo hadii la yiraahdo hoos baan ugu dhaadhici doonaa oo gudoomiye iyo hadii la beedankeeda leeyahay tuula la isku warsan doonaa insha Allah tacaala shirku saas uu nagu furan yahay ku gacmo furan ku soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gudoomiyaasha tuulooyinka waxaan ugu horeysiin doonaa Ismaaciil Aw Muuse abka gobolka Maroodijeex barasaabka xigeenka xildhibaanada marti sharafta kale gudoomiyaha degmada Faraweyne iyo ku xigeenkiisa iyo xogayaha ka soo qayb galayaasha ka kala yimid tuulayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh runtii maanta waxay sharaf bay noo tahay inteena soo tuulooyinkii ka tirsan degmada Faraweyne oo hore iskugu iman inaynu maanta iskugu nimaadna halka oo aynu ka wada hadallo danaheena iyo taguudeed dalka iyo arrimaheena horta sharaf bay noo tahay waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa isu keenista in halka aynu isku nimid gudoomiyaha cusub ee degmada Faraweyne ee muddo dheer oo inaan isku iman anu horta intaan xilka ayay maan arag kulankan oo kale isku iman malaha 15 sanadoodna waan hayay yareyn maayay marka maanta sharaf weyn bay noo tahay inaynu isu nimaadno inagoo baahideena iyo isbarashadeena iyo arrimaheena ka wada hadlana horta sharaf bay noo tahay maamulka cusubina waa ku mahadsan waxa kale oo halkan uga mahadnaqaya barasaabka oo markii malaha saddexaad iyo markii afraad waxay tahay mooyee degmada dhowr jeer hawlaka ka jiraan yimid waa ku mahadsan yahay isagana noqnoqodka kullee anigu halkan waxaan ka sheegayaa shirkadda wuxuu ku qoran yahay boardkaas ku qoran yahay waxa la yiri waa la wada tashanayaa degmadu way wada tashanaysaa marka barasaab waxaan ku sheegayaa iyo xildhibaanada iyo qolada kale idin la socota waxba naga soo bixi doona kullee wada tashiga iyaga oo la faguri doona waan ku soo gudbinana waxa naga soo baxayaan anaga waa wax weeyaan inoo dana oo degmada u dana oo dalka u dana oo gobolka u dana ayuunba ka soo bixi doona waan ku soo gudbin doonaa maanta wax kale oo aanu anagu hoos ugu sii dhaadhacana
ma jirto waanu idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa waanad mahadsantihiin ku soo dhawaadaanu idin leenahay degmada Faraweyne gaar ahaan jaamacadda Aburiin ee waxqabadka iyo horumarka degmada ku soo dhawaadaanu ilaahay waanad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi maxamed cabdi daawud يعني سجنا كلمتي سكسور وين إن شاء الله. سكون كان كهني نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسليا اللهم صل وسلم وبارك عليه وحن سلام قيمة له يا شرف له وجود بنا يا قدوميها قبل كان ورد جاح كحجين كيسة يحكيها إن طامل لما ذا وحن وجود بنا يا قدوميها دقمة فروينة حجين كيسة يوم حانكر هذا يحكيها با سلا إلى هاي حولها هي بيرها يدينسي نعمة فربضوا إذا رجوين باكرتها إما كبيها كعبان إنسان وحويه 400 أو بالكي مليمتر يا ويكبر أنت هيدك مدن فروي هرجيساي لا 400 روب كل مركان على قلبه وكعذبة وصيبتها تونس تاع ركتين اللي هذا تونس الخضراء والله ما بقول صلت كي وحيشة إذا كنا واحد عشان 400 لكن لما هذا بقول يجو وحيكون سميان دام بيكون سميستانه كعدا مركا وحويه markaas caawisaan buu ilaahay inay caawinaya subhanahu wa ta'ala marka madaxdana way iduu sheegay kulli wixii aad rabtaan idinkuna waxa ugu badan idinku idin saaray yahay isku tashado kolba meel isku casuumo madaxduna way idin imanne wax qabsada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dr cabdiraxmaan giil waa isagoo waa gudoomiyaha mashruuca HIV degmada waa run sida uu sheegay maxamed cabdi daawud degmadu waa dawaq qaniya opportunity farabadan fursado farabadan iyo xaqabad farabadan baa yaala dhalinyaradii ka shaqeyn lahayd iyo xoogii ka shaqeyn lahaa intii halka joogtaa waa odayaashii waa run waa inta ka sii hadhay malaha inta wax qaba karaysa inta aad dhasheen idinku waxaan qabaa waa kuwa halkaa ku wada qaylaya geedka inta kalena tuulooyinkiiba joogaan mid beertiisii ka shaqeynaya mid xoolihii ka shaqeynaya midna ma jiro xoogaal baan ahay anigu wax badan baan ogahay marka maanta fursad fiican baa jirta fursad fiican waxaanay aan ogahay in loo heelan yahay saddexda arrimood ee adabdhaxaadka waa degmada waa maxay waa beero wax soo saarkay kow sida madaxweynuhu ku dhawaaqayna wax soo saarku waa udubdhaxaadka xukuumadda maanta jirta in wax la beero in biyo la helo in xoolihii hore loo mariyo oo laga shaqeeyo marka waxa weeyaan intiibana degmadani waa ka kooweeyey wax badanna way jiraan in la sare loo qaado sare loo hormariyo ayaa runtii meesha ku jirta wax badan oo dhiman baa jira wixii idinka dhiman ee xogagaal ah sida aad sheegteen idinkuba inta aad si fiican ugu soo baaraadegtaan oo qoraal fiican u soo samaysaan u soo gudbiya barasaabka iyo golayihiina xildhibaanadiina baarlamaanka iyo deegaanka intaba wada haysataane u soo gudbiya iyaguna way idiin soo garaacay wax wada qabsigaaga adiga isku kalsoonidaada adiga isjacaylkaaga adiga iskaashigaaga xildhibaanada waxqabadka badan ayaan ku soo dhaweynayaa waa xildhibaan Axmed Daahir Axmed gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyihii hore ee gobolka iyo marti sharafta kale ka soo qayb gashay aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan eegay baahida degmada taala ma aha mid la qiyaasi karo iyo mid la koobi karo toona waxaan eegay deetana caafimaadka iyo biyaha caafimaadka MCH-ka Faraweyne tio la seexdo albeerka uu yahay oo lagu qaylo meeshaas ayaan furay deetana aan sariirta kaliya wax laga siiyay $700 laga umuliyo hooyada waxa weeye halkaynu ugu nugul lahay waa hooyada iyo dhalaanka maantana alxamdulillah wuu isbixiyaa maalin dhaweed baan kormeer soo maro gaarigiyo fadhi arkaan balaaska ahaa $700 baan geliyo wakaalka taagana shaqeynay speedadu iyagoon shaqeynin 6 ceel baan marayaa imika intaan ka sameeyay xagga biyaha aan isri malaha biyaha ugu roon iyaguna kii u dambeeyay xaraf uu imika ka socdaa shan dhabool bay ka qodan yihiin anaga iyo qolo kale oo wasaaradda maxaan ku radaa xanaanada xoolaha iyo kormeer waxaan ku soo sameynay Faraweyne iyo inta ka sareysa lafta Faraweyne balsi la yeeli lahaa ay xoolaha bal wax looga qaban lahaa aduu dhowr iyo 10 tuulo gudoomiyuhu ogaa ayaa la isla qaatay in iyagana laga dhigo bal in loo qaybiyo waxyaabo yar yar oo ma garanaysa biyaha lagu aduu qarbadaamaha noqdaan ama wax biyaha lagu sameyn karo waxa weeye iyadoo ay jiraan wasaaradii ku shaqada lahaa oo iyagana aan wada shaqeyn aan la yeelanayno haddana waxa weeye in sidii degmada wixii dhibaato ku ah
wax looga doon lahaa waan ka hawlgelinaa insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan shirkan la Hargeysa ku qabanno kana waxaan idin sheegaynaa idinka sidaad isugu timaadeen idinkoo gudoomiye gobolka haysta gudoomiye ku-xigeenkii iyo maamulkii degmada oo idin helan oo nin dhalinyaro oo firfircoona insha Allah xildhibaan Cabdikariin aw Cali Shabeel mudan xildhibaan ku soo dhawow sida xaqiiqada ah hadalka murtidiisa iyo macnihiisu baa wanaagsan in la soo gaabiyo ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fahadith horta inay nimcada ilaahay uu nasiiyo ilaahay baa mahad hore iyo mahad damaba leh degaan ahaan arab arkay dhulalka carbeed ama koonfurteeda ha noqoto ama Afrika galbeedkeeda ama koonfurteeda ama dhinac kasta ha noqotee waan marayo waan arkay yaani dhul inaga cimilo wanaagsan oo inaga degaan wanaagsan oo inaga carro wanaagsan hadaynu ilaahay ku mahadinayno ku garanayno horta ma jirto biyaha cusub imika degmada Faraweyne loo soo bedelay Soomaalidu waxa ku mahmahda war hela tala hela isaga anaga noo yimid wuxuu soo gaarsiiyay fariimo adag warbixin buu naga siiyay degmada inta yidii mas'uuliyiinta Hargeysa joogtay ragga hore iyo ragga iyaga imika joogaba hadana qofku aanu war helin demo wada koob karo deegaanka oo dhan baahiyaha jiru noo sheegay dibatana waxa weeyaan waan sururinay ilaahay wax lagu mahadiyo maanta waxa guddiga horumarinta ee degmada Faraweyne ayaa samaysmay sababna isaga ah talaabada ku xigtay doonayaan qaadna waxa hayeen gudoomiyaha gobolka maroodiyo xanu tagno oo dibatana wixii sidaan wuxuu qaban lahayn aan halka ka amba qaadno waa markii ugu horeysay baan u maleynayaa gudoomiyaha hadaan qaldanayn la sameeyo guddi horumarineed oo degmada Faraweyne ay leedahay maanta waxa taagan inaynu sameeyno quruxdii degmada looga baahnaa waa degmo aad u ballaaran waa degmo hadii baan ka leeyahay deegaankeedu uu ilaa Hargeysa ilaa maanta intaan soo soconay ilaa Faraweyne uu is haysto waxay la tahay hadalka murtidiisa iyo macnihiisa waa la wada yiri waxaan ilaahay ka rajeynayaa shirkeenan maanta ugu horeeya ee aad ka marxaata kacdeen muddo 20 sanadood shircaankan oo kale inaanu dhicin in ay ka soo baxaan wax yaani nuxur leh oo waxtar inoo leh oo dhammaan degmada oo dhan faa'iido u hayaan ilaahay ka rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Maxamed Abiib Cismaan Maxamed Sikaawi ayaan ku soo dhaweyn doonaa xuluhoogi maalin dadku aan shaqadooda iyo bilahdooda qabsan markaas dabeetana dadku ka u horeeya 7 iyo 8 bilaabay qaybta kale imika duulooyinka aan ku arkay in bariyihii hore aan jiri jirin odayaashu way garanayaan qaadka waxa la keeni jiray tuulooyinka la keeni jiray imika waxa la keenaya cala gurguri boota loo dulkeenaya arinta waxaan leenahay la nooga duceeyo ugu horeyn arinta labaad iyaduna hadii jeeraalaan aad iyo aad kuga dabqana waxa kamid ah dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca biyaha oo runtii iyaguna aad iyo aad u hooseeya oo u baahan runtii in tala badan laga yeesho shaqo badanna laga qabto arintii xoogeeda iyo muruqeegu waxay fadhidaa odayaashan maanta halka fadhiya ayay fadhidaa wax kasta oo la qabanayo hawl kasta oo la qabanayo halkan ay taalaa runtii cid kasta oo markaasi wax la qabanaysaa waxay ku soo dhiirinaysaa sida odayaasha iyo dadka degmadu ay isugu xidhmaan iyo gudoomiyaasha tuulooyinka sida wax uga qabtaan waxweeyaan dadku haddii aynay isku tagin oo aynay wax isweydiinin waxna la qaban kari maayo horumarna iman maayo cid kalena waxbayna la qaban kari mayso waxaan aaminsanahay haddaynu inagu isku tagno oo inagu isku ururno oo aynu gacmaha isqabsano inaynu wax badan inagu qabsan karayno oo markaasi aynaan wax badan cid badan uga baahinayn waxay la qaban karayo markaasi waa la qaban doonaa markii inagu wax qabsano waxaan leeyahay odayaasha gudoomiyaasha degmooyinka annagoo bari ilaa maanta gelinka dambe isku xadhi doona waqti badanna wada qaadan doona in aynu wax ku heshiino iyo qareerad iyo intijaa aynu ku wada shaqeynayno ku heshiin doona insha Allah taala intijaahaas wuxuu noqon doonaa wax inaga inoo wada dana oo dhammaan tuulooyinka u dan u noqon doonaa oo duulo kasta u dana haddii duulo hiblaayo fiicnaato oo biyo laga helo tuulada kale way ku aroori
waa wax u soo kordhay tuulooyinka oo dhammaystiran runtii dadka degmada Faraweyne waa dad aad iyo aad isku jecel maaha dad muran iyo qayle iyo buuq midna ka dhaxeeyo intaan joogay waa dad aad iyo aad markaasi waxayse loo baahan yahay in aynu isku nimaadno oo aynu gacmaha isqabsano oo aynu arrinta fiicnideena iyo wanaageena iyo wada muxuu ahaayay wanaageena wax qabad aynu u bedelo runtii halkan maanta waxaa ku fadhiya 39 tuulo ee koo simanayay degmada Faraweyne runtii gudoomiyaashoodii waxaanu halkan isugu nimideen xoolaha iyo danaha looga wada yimid arrinta maanta baahida ugu weyn ee na taabatay waxa kamid ah baahida bahalka dhibaatadaas oo nagu hayo runtii waxaad arkaysaa beeraha berigii hore marka la qodo ee ama cagaf lagu qodo ama wax kale lagu qodo ee markay beertu baxdo wala baaqbaaqi jiray beeraha dhamaantood saas aad u adeegsaay intii aan joogo beer la baaqbaaqay haramaha iyo qaranka isleekaaday ka baxay waxa soo dhan waxa keenay waa mushkilada qaadka qofku ninka dhalinyarada ama xoogi 8 subaxnimo ayuu waxa uu imanaya kaamka qaadku wuxuu ka rawaxayaa dabeetana ugu dambeyn ka ugu horeeyay ugu ragaysan ugu fariisan ayaa labada ka tagaya waqtiga inta ugu badnaan 6 saacadood buu wuxuu ku qaadanaya inuu mijin yar oo qaado cawlan meel kurf waxaan leeyahay la deyn kari maayo oo waa bahal maska masiiba laakiin bal inta yar hal cuno waqtiga yar hal cuno oo tusaale ahaan qofku 12ka markuu salaada duhur tukado ha iska fadhiisto ilaa iyo kowda inta cadad kuleelka hawlaysa ku yaranasto wixii makilika dambe ka dambeeyana beylahdiisa iyo xoolihiisa iyo sicihiisa hadoonto iyo beertiisa qoodigiisa sidii loo hagaajin lahaa sidii dhulka wax looga soo saari lahaa dhammaan tuulooyinka waxa ka qodan dhaamanba ka wada qodqodan waa asmay marka taariikhdooda dib u eegto dhaam quraato oo ama ay dawladu qabtay ama ay hay'ad qotay waa wax yar weeyaan dad baa qoday odayaashii hore ee dadkan qaarkood ay dhaleen iyo dadkii teegaamada qotay maantana waa laga xoog badan yahay waa laga qalab badan yahay oo masharafadaaba la haystaa casri iyo alaabo qalab badan waxaan aaminsanahay in ceelasha la dhooba qaadan karo oo la sameyn karo haddii ninkiiba la yiraahdo intan in leeg adiga waa daqiiqad buu kaga tuuraya waxaan isku tagno in isku tashano oo in wax wada qabsano aad iyo aad baad mahadsantihiin runtii waqti badan ayaad joogteen waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac si isaguna kelmadiisa noogu gudoomiyaha degmada Faraweyne gudoomiyaha ku-xigeenka iyo xogayaha gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex xildhibaanada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka odayaasha kale gudoomiyihii hore ee gobolka Maroodi Jeex doctorka khiyaarta kale iyo odayaasha kale iyo gudoomiyaasha tuulooyinka degmada Faraweyne dhamaantiin mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan runtii waa munaasabad qiimo badan waan aad iyo aad ugu mahadnaqayo gudoomiyaha degmada Faraweyne ee runtii hawsha qiimaha badan ee uu qabtay oo ugu horeyso inuu abaabulay oo uu ka qayb qaatay sidii loo sameyn lahaa guddiga horumarinta ee degmada Faraweyne oo ah guddiyada horumarintu runtii waxyaabaha deegaanadu ay isku dhaafaan dadku hadduu samaysto guddiyo horumarineed oo la isu yimaado oo la iskaashado wax badan baa la qabtaa waxa kale oo ugu mahadnaqayaa odayaashan sharafta leh ee maanta halkan isugu yimi ee ah odayaashii tuulooyinka ama gudoomiyaashii tuulooyinka oo sida la sheegay aan isu imanin runtii munaasabatan oo kale ah aan hore u dhicin inta la garanayo oo runtii ah wax qiimo badan marka bini'aadmigu isu yimaado ee la iswaraysto ee la wada tashado waxa ka soo baxa talooyin iyo go'aamo wax ku oola waa la isbartaa waxa la isaga waramaa baahiyaha iyo caqabadaha ka jira deegaan walba iyo qolo waliba waxa la isdheeryahay faa'iidooyin badan baa la kala helaa runtii waa munaasabad wax ku oola oo aan aad iyo aad u hambaliyeynayo odayaasha gudoomiyaasha tuulooyinka iyo madaxda degmada soo abaabushay iyo madaxda kale ee ka soo qayb gashayba runtii waa munaasabad qiimo badan insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in wax qiimo badan ay ka soo baxaan anaguna waan idin garab taaganahay go'aamada aad soo saartaan iyo wixii aad noola timaadaana waa waajibna saaran inaan idinku garab gallo oo aan isku garab taagno runtii bini'aadmigu marka uu fakiro ee tashado ee isu yimaado wuxuu soo saaraa wax dantiisa iyo horumarkiisu ku jira
maamulka iyo madaxda markaa joogtaana inay isgarab taagaan oo ay gacan qabtaan waa waajib saaran runtii waxaa laga hadlay dhibaatada qaadku uu ku hayo ummaddeena xildhibaanku wuxuu yidhi ha loo aqoonsadaa aafo qaran waan ku taageersanahay runtii waxaan isleeyahay dhibaatada ugu weyn ee waddankeenna haysataa dhibaatada ugu weyn waa taa ninba maalin sheekeeye wuxuu yidhi qaadku wuu wanaagsan yahay oo waa quud awliyo ninbaa ku yidhi nin hadduu wanaagsan yahay bal reerka u gee xaafadda ha kula cunto dee hadduu wax wanaagsan yahay guriga qaado galabtii markaad caraabaysa intaad qaado ninka wuu ku xanaaqay ninka wuxuu yidhi waa raxbaan kuu sheeganaya ma hadda leeda reerkaaga dee hadal hadduu dee wanaagsan yahay baan ku idhi wax ka sii dee reerka hadduu xun yahayna dee iska daa intaasaa tusaale ugu filan sanadba sanadka ka dambeeya horumar baynu gaadhaynaa marka runta laga hadlayo sanad walba waxba inoo kordha sanad kasta waa wax ilaahay loogu mahadnaqo horumarkaasi wuu soconayaa iskuullada tayadooda waa la hagaajinayaa dhowaan insha allahu waxaan guddoomiyaha ku ballansannahay isuduwayaasha waxbarashada iyo caafimaadka iyo beeraha iyo biyaha inaanu kormeer ku marro deegaanka degmada waanu tuulooyinka intooda badan kolley mar wada mari kari mayno way badan yihiin laakiin intooda badan inaanu marro oo aanu ogaano baahayaha caafimaadka kuwa biyaha waxbarashada oo uu soo gaarsiiyay guddoomiyuhu intii uu joogay waxaasoo dhan ceelasha fadhiya uu soo gaarsiiyay waxbarashada tayada oo hoos u liidata oo macallimiintu ay u baahan yihiin in tababar la siiyo anaguna waanu gaarsiinay wasaaradda caafimaadka oo u baahan in isagana loo sameeyo dadka qof hargeysa laga keenay ma joogi karayo mushaar ku filanna ma qaadanayo laakiin in dhallinyarada deegaanka la tababaro oo caafimaadka wax laga baro oo xanaanada xoolaha wax laga baro oo iyagu ay u shaqeeyaan dadka deegaanka runtii waa arrin aad iyo aad muhiima waxaasoo dhan insha allah waan u kurgelaynaa siday u kala mudan yihiinna waan u gudbinaynaa baahiyooda in wax looga qabto kolley dee mar waxba lagama wada qaban karo laakiin waxa weeyaan sidii wax looga qaban karo ayaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bihi nastaciinu calaa umuuri diyaan wadiin shirkeennii labada cishay noo socday gudoomiyayaasha tuulooyinka degmada hoos yimaada guud ahaan maanta ayuu noo soo gabagaboobay aad iyo aad baad u mahadsantihiin muddadii aynu halkan fadhinay go-aankii ka soo baxay shirka labada cisho aynu u soconnay baan halkan ka akhriyi doonaa kow waxaa ah shirka labada cisho waxaynu ka soo saarnay 7 qodob qodobka koowaad waxaynu kaga hadalnay oo qodobka koowaad ah waxbarashada oo iyadu muxuu ahaay qaybo badan leeyahayno aad u falaqeynay ay kow ka tahay tayada macallimiinta oo la kordhiyo laba ay ka tahay muxuu ahaay waalidiinta oo iyaguna caruurtooda iyo ka warhaynta dadka ciyaalka ay meesha keenaan saddex oo ma markaas in iyadana macallimiinta la guneeyo wixii aan guneysnayn afar waxa ka ah muxuu ahaay in la keeno ardayga waalidiinta iyo dadka deegaanadu ay keenaan caruurta iskuulka waxa iyaduna kamid ah in macallinka iyo in waalidka iyo dadka waalidiinta iyo dadka deegaanka ee caruurtooda aan iskuulada geenin in ay deegaamadu ka tashadaan oo go'aan iyagana ka soo saaraan isla markaana dabeetana ay ku muxuu ahaayay kula taliyeen in caruurtiisa keeno iskuulka wixii go'aamay duulooyinku halka ka dhigtaan degmada Faraweyne loo soo gudbiyo degmaduna ay fuliso waxa kale oo iyaduna kamid ah in muxuu ahaayay kormeer la sameeyo macallimiinta ama ha ka yimaado xagga wasaaradda ama ha ka yimaado xagga maamulka degmada in kormeer la sameeyo kormeerkaas oo muxuu ahaayay sameeyay degmada Faraweyne iyo wasaaradda waxbarashaduba in loo gudbiyo kaas waa qodobka kalena waxa weeyaan dhuxulaysatada ayaynu iyadana muxuu ahaayay ka hadlay qodobka labaad dhuxushi waxaynu niri in loo sameeyo maxaan idhaahdayay kow in dadkeena laga wacyi geliyo dhuxusha number 1 isla markaana in gudoomiyayaasha tuulooyinka iyo dadka odayaasha ee tuulooyinka degan ay iskaga yimaadaan oo ay wax iska weydiiyaan arrinta dhuxusha waxna go'aanna ma ka soo saaraan go'aankaana degmada Faraweyne ay fuliso laba in dadka dhuxulaysatada ah ee aan deegaanka ahayn ee u soo guuray degmada Faraweyne in ay muddo kaga baxaan muddadaas oo muxuu ahaayay ah wixii imika hawl ka taala ay deeranayaan oo ilaa iyo bisha koowaad 15keega inay ka guuraan degmada Faraweyne ay kala baxaan wixii qalab ka yaala iyo wixii reer ka yaala intaba ay ka guuraan oo ugu dambeeyna wixii inta ka dambeeya qofka lagu arko ee deegaanka ee degan dhuxulaysatada talaabo sharci waafaqsan laga qaado laba waxa ka in laga wada shaqeeyo sidii dadka deegaanka ah ee ama beeraha leh ee iyaguna ka kireynaya ama si ka iibinaya ama iyaguba shidayana
in annaga oo degmada faraweynihiina fulinteedaan lahaano iskana kaashano guddoomiyaasha tuulooyinka iyo dadka waxgaradka ee tuulooyinka degan. 3 in wasaaradda deegaanka runtii oo ah wasaaradda qaranka u qaabilsan deegaanka in aanu kala hadalno annagoo maamulka iyo dadka deegaankiiba sidii loo heli lahaa falosterigii ka shaqayn lahaa ama shaqaalihii u gaarka ahaa wasaaradda ee hawsha dhuxusha wax nagala qaban lahaa annaguna haddaan nahay deegaanka iyo haddaan nahay maamulka degmadaba aanu gacan u siin lahayn. qodobka 3aad waxa weeyaan wada shaqaynta guddoomiyayaasha ama guddida tuulooyinka iyo guddida sare ee degmada Faraweyne. waxaynu qodobada aynu sii kala saarnay 1 in aynu si joogto ah iyo si toddobaadlaaba u kala qaadano wararka hadba wixii soo kordha iyadoo muxuu hayay la siinayo guddoomiyayaashu la soo xidhayaan xogayaha degmada iyo hadba cidii ay muxuu hayay helaan si waxa kolba wixii soo kordha loo kala qaato. 2 in waxaan dhahdaa 6 biloodba hal mar la iskugu yimaado shir guddoomiyayaasha degmooyinka iyo sidii kolba muxuu hayay halkii la iskugu yimaanay degmadu soo goyso 6 biloodba hal mar shir noocan oo kale ah degmada Faraweyne guddoomiyaasheedu iyo guddida degmo sare ay isugu yimaadaan. qodobka 4aadna waxa weeyaan qodobkii ahaa muxuu hayay in maadaama aynu dawladnahay wixii cashuuro ah ee cashuuri ku waajibtay in la cashuuro oo la iskana gaashado guddoomiyayaasha tuulooyinka sidii loo cashuuro lahaa horaanta sanadkan ugu horeyn January inay cashuuraha soo hoydaan. waxaynu soo saarnay guddi horumarina oo halkan magaceega ka xaadirin doono oo iyaguna muxuu hayay aan xaadirin doono magacooga guddidaasi oo ahaan doonta guddida horumarinta degmada Faraweyne oo wixii hawleeyaha degmada gudaheega kala shaqayn doona guddida muxuu hayay wixii hawlaha kala shaqayn doona guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo maamulka degmada gudaheega. qodobka 6aad oo aynu iyagana isla soo qaadanay waxa jira waxyaabo aan hore dhaqankeena ugu jirin oo ay keeneen dhalinyarada iyo dhaqanada imika si doorsoomay ka mid tahay aroosyada oo kale oo dib weyn runtii ku hayo dhaqan xumo weyn oo awal hore oo macaasile ay ku jiraan. taana waxaynu isla qaadanay in guddoomiyayaasha duulooyinka iyo guddiyada tuulooyinka duulo kasta ay ka soo hirgeliyaan sharciyad lagu xakameeyo isla markaana fulinteedana ay lahaato degmada Faraweyne. qodobka u dambeeya oo ah markaasi qodobka 7aad waa guddidii degmada Faraweyne oo iyagana aan xaadirin doona. waxa koow ah Ismaaciil aw Muuse. 2 waxa ah markaasi Cabdilaahi Ismaaciil. 3 waa Gahayr. 4 Iid Qalombi. 5 waxa ah Khadar Cali uu taagan yahay. 6 waa Mahad. 7 Maxamed Jaamac. 8 waa Maxamed Yaasiin. 9 waa Cali Qowdhan Cabdi. 9 kaasi waxay ahaan doonaan guddida horumarinta degmada Faraweyne ee heer degmo. waxa kale iyaguna dhawaan soo bixi doonaan raacin doona hadii la yiraahdo guddi iyaguna heer qaran ah oo ay ku jiraan wasiiro hore iyo walibana xubno muhiim ah oo degmada Faraweyne ka soo jeeda iyaguna magaalada Hargeysa aanu kaga dhawaaqi doono insha Allah. waxay markaas iskaashan doonaan guddida heer degmada Faraweyne iyo guddidaasi iyo walibana maamulka degmada Faraweyne insha Allah taala ana waxaanu gaari doonaa guulo wax ku ool ah marka intaas isku tagaan iyo walibana dadka kale iyo dadweynaha kale oo gacmaha haysta ayaan insha Allah taala ayanu gaali doonaa hadii la yiraahdo. horta kulli anigu maanta shucuurtayda iyo farxadaydu aad iyo aad bay u sareysaa waayo muddada horta anigu aan joogada qolada ka soo horeeyay wili damay dhicin kulan ay degmadu iyo tuuliyaasheedu iskugu yimaadaan. horta Ilaahay suurta galiyay baan leeyahay alxamdulillah Ilaahay baa mahadle. ta kale odayaasha tuulooyinka ee guddiga aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa uguna mahadnaqayaa sida wanaagsan ay hawsha horan ugu soo wadeen haddana ay diyaarka ugu yihiin inay sii wadaan amba qaadida hawlaha degmada hor yaalla. horta aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa marka hore waxaan leeyahay horta hawl fiican ayaynu qabanay waana tusaalihii ugu horeeyay maanta waxaan leeyahay waa maalin qiimo leh oo taariikhda degmada Faraweyne geli doonta. waa 1 in 9 tuulo ay iskugu yimaadaan 2 cisho hawl ugu socotay halkan waa maalin taariikhdana way geli doontaa. marka kulli hadalka badan maayo qodobadii dhan lagu heshiinaa guddoomiyaha xiyay kulli waa soo gunaanadkii waxaan leeyahay cid Allah kasto hawshan naga gacan siisay oo naga qabatay aad baan soo dhaweynaa aadna waan ugu mahadnaqayaa. wassalaamu calaykum warahmatullahi. waxa weeye shirkan 2 cisho waxaan soo qaabiyay waxa caqabado ka hortay horta ma jirto wax noqday saafi noqday wixii la soo qaado kulli mid waxaan noqday wala wada ansixiyay sallallahu alayhi ilaahay markaasna ilaahay korna u qaado. waxaan leeyahay guddida doortay mar labaad iyo mar hore guddoomiyaha mar labaad xil labaad sar waxa weeye waa laba xil baa qaadanayo. waad wada mahadsantiin waxaynu iskugu nimidna waxa weeyaan inaynu gacmaha isqabsanno inuu wax wada qabsanno oo aynu
guda iyo dibadba degmadan ka shaqaynaynu isugu nimid intaana ilaahay haynugu taageero dee xilkiina waa kaase kaa labaadna wuu inoogu darsamay guddidii aynu ahayn kaana ilaahay haynugu taageere inaynu isgarab galno oonu wax idinla qabanno ayaanu diyaar u nahay